Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada kanaalka. Muuqaalkan maanta waxaan ku sahmin doonaa taariikhda gobolka Hiiraan oo ka mid ah gobollada ugu taariikhda dheer Soomaaliya. Waxaan ka hadli doonaa sida uu gobolka u soo maray waayihii hore, doorkii uu ku lahaa ganacsiga, dhaqanka, dowladihii kala duwanaa ee soo maray xilligii gumaysiga, gobonnimada Soomaaliya iyo kaalinta uu maanta ku leeyahay dalka. Haddii aad xiisaynayso taariikhda Soomaaliya, fadlan subscribe saar kanaalka, likena saar muuqaalka si aad u hesho muuqaallo kale oo la xiriira taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Gobolka Hiiraan wuxuu ku yaallaa bartamaha Soomaaliya. Gobolka waxaa dhex mara webiga Shabeelle River, kaas oo ka soo bilaabma buuraha Itoobiya una soo gudba gudaha Soomaaliya. Magaalada ugu weyn gobolka waa Beledweyne, oo ah xarun ganacsi, dhaqan iyo taariikh leh. Magaaladan waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo isku xirta bartamaha iyo waqooyiga Soomaaliya. Sababtaas awgeed, Hiiraan qarniyo badan waxay ahayd goob muhiim u ah isu socodka dadka iyo badeecadaha. Ka hor intii aan la gaarin xilligii gumaysiga, dadka ku nool Hiiraan waxay ku tiirsanaayeen xoolaha, beeraha iyo ganacsiga. Webiga Shabeelle ayaa ahaa laf-dhabarta nolosha gobolka. Waxaa hareerihiisa ka jiray beero waaweyn oo lagu beeran jiray galley, masago, sisin iyo dalagyo kale. Waxaa sidoo kale gobolka ka jiri jiray suuqyo waaweyn oo ay ku kulmi jireen ganacsato ka kala iman jiray deegaanno badan. Dadka deegaanka waxay lahaayeen dhaqan qani ah, suugaan, hal-abuur iyo nidaamyo dhaqan oo lagu maamuli jiray bulshada. Taariikhyahanadu waxay sheegaan in dhulka Hiiraan uu xiriir la lahaa dowlado iyo boqortooyooyin Soomaaliyeed oo soo maray Geeska Afrika. Gobolku wuxuu ka mid ahaa meelihii ay maraan waddooyinka ganacsiga ee isku xiri jiray gudaha Soomaaliya iyo dhulka Itoobiya. Ganacsatada ayaa ka ganacsan jiray xoolaha, haragga, badarka iyo alaabooyin kale oo muhiim ahaa. Taasi waxay sababtay in gobolka uu yeesho muhiimad dhaqaale oo weyn. Dhammaadkii qarnigii 19 iyo bilowgii qarnigii 20 Soomaaliya waxaa soo galay quwadihii Yurub. Gobolka Hiiraan wuxuu galay gacanta Talyaaniga, waxaana loo aqoonsaday qayb ka mid ah dhulkii loo yaqaanay Soomaaliya Talyaani. Talyaanigu wuxuu ka sameeyey gobolka xarumo maamul iyo adeegyo kala duwan. Sidoo kale waxay xoogga saareen horumarinta beeraha ku teedsan webiga Shabeelle. Si kastaba ha ahaatee, gumaysigu wuxuu la yimid cadaadis iyo isbeddello saameeyey hab-nololeedkii bulshada. Markii ay bilaabatay halgankii gobonnimo doonka Soomaaliyeed, shacabka Hiiraan waxay ka mid ahaayeen bulshada taageertay midnimada iyo xorriyadda Soomaaliya. Dad badan oo ka soo jeeday gobolka ayaa door ka qaatay dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee horseeday xorriyaddii Soomaaliya ee sannadkii 1960. Hiiraan waxay markaas noqotay gobol muhiim ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya. Beledweyne waa magaalada ugu weyn gobolka. Magaceedu wuxuu caan ku yahay ganacsiga, waxbarashada iyo dhaqanka. Magaaladu waxay leedahay buundo caan ah oo isku xirta labada dhinac ee magaalada, waxaana dhex mara webiga Shabeelle. Beledweyne muddo dheer waxay ahayd xarun ay ku kulmaan ganacsatada ka imaanaya gobollada kala duwan ee Soomaaliya iyo dalalka deriska ah. Hiiraan waxaa lagu yaqaannaa suugaanta, gabayada iyo hidaha dhaqanka Soomaaliyeed. Gobolku wuxuu soo saaray abwaanno, odayaal dhaqameed iyo aqoon-yahanno caan ka noqday Soomaaliya. Waxaa sidoo kale caan ka ah xafladaha dhaqanka, ciyaaraha hidaha iyo soo dhoweynta martida. Dhaqanka gobolka ayaa ka tarjumaya qiyamka Soomaaliyeed ee ku dhisan wada noolaanshaha, geesinimada iyo is-ixtiraamka. Maanta gobolka Hiiraan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu muhiimsan bartamaha Soomaaliya. Beeraha, xoolaha iyo ganacsiga ayaa weli laf-dhabarta u ah dhaqaalaha gobolka. Sidoo kale gobolka wuxuu leeyahay fursado badan oo dhinaca maalgashiga, waxbarashada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Inkastoo uu soo maray caqabado kala duwan, haddana shacabka Hiiraan waxay sii wadaan dadaallada dib u dhiska iyo horumarka. Marka la soo koobo, gobolka Hiiraan waa gobol leh taariikh fac weyn, dhaqan qani ah iyo muhiimad weyn oo ku saabsan Soomaaliya. Laga soo bilaabo waayihii hore, xilligii ganacsiga, gumaysiga, halgankii xorriyadda ilaa maanta, Hiiraan waxay weligeed ahayd gobol door muuqda ku leh taariikhda dalka. Haddii aad ka soo jeedo Hiiraan ama aad wax ka taqaan taariikhdeeda, noogu reeb faalladaada qaybta kommentska. Ha iloobin inaad subscribe saarto kanaalka, like iyo sharena la wadaagto asxaabtaada. Mahadsanidin. Nabadgelyo.